kulanti waxaan daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa channelkeena Runmal Media alaaba halkan waxa idinkugu soo gudbinaa xogihii u dambeeyay dhacdooyinka caalamka gaar ahaan kuwa ugu saameynta badan muuqaalkan inta daawanaysana waxaan ku soo gudbin doonaa xaaladda bariga dhexe oo markaan cirka isku shareertay saldhigyo badan oo Mareykanka uu ku leeyahay wadamada Khaliijka Carabta oo dhulka la simay sidoo kale safaaradda Mareykanka ee Riyadh oo xilligan olol xoogan uu ka baxayo kadib markii duqeyn culus ay la bartilmaameysatay Iran xogii u dambeeyay halkan kugu soo gudbin doona waxa sidoo kale muuqaalkan ku daawan doontaan Israa'iil oo markii ugu horeysay sheegtay inuu jab culus uu soo gaaray saraakiil sarsare oo Amerikaan oo sidoo kale Iran ay duqeyn ku dishay xogaha soo dhameystiran ayaa halkan idinkugu soo gudbin doona hadii ay tahay markii ugu horeysay uu ku soo gaaro muuqaalkeena fadlan subscribe inoo dhig gambalelkana furo si ku soo gaara muuqaalada kale xiga hadii subscribe inoo tahay muuqaalkan oo share garay laakiin oo soo gaara asxaab badan oo ku maasantahay daawashadaada aragtidaada inoogu reeb qaybta faalada waa idoo muhiim ah inuu ku bilaabno xaaladda bariga dhexe ayaa markaan cirka isku sii shareertay iyadoo sidoo kale xaaladdu ay noqotay mid waji gabax ah kadib markii Iran ay weeraradeedii ay sii xoojisay isla markaana bartilmaameedyadeeda ay noqdeen kuwo isdaba joog ah iyadoo saldhigyo badan Mareykanka uu ku leeyahay wadamada Khaliijka Carabta iyo sidoo kale bariga dhexe Iran ay dhulka la sintay sidii ay u duqeynaysay waxa sidoo kale Iran ay adeegsanaysaa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska gaar ahaan kuwa loogu talagalay dagaalka iyadoona meelaha fog ka tooganaysa saldhig walba oo Mareykanka uu ku leeyahay wadamo kamid ah Khaliijka Carabta iyadoona sidoo kale Iran ay sheegtay in weeraradeedii ay noqon doonaan kuwo isdaba joog ah oo aysan marnaba aysan joojin doonin warbaahinta Iran ayaa waxay sheegtay in mid kamid ah maraakiibta dagaalka ee Mareykanka ay gantaal la beegsadeen kadibna markii uu diiday inuu u hoggaansamo digniinaha ciidanka ilaalada kacaanka ee militariga Hormuz warbaahinta Iran ayaa waxay sheegtay in hadda markabka la beegsaday uu bilow u yahay isla markaana uu badda uu ku qusay waxayna sheegtay in cid alaalaha cidii u hoggaansamaysa amarada ka soo baxa ay sida markabkan oo kale ay u beegsan doonaan markabkan ayaa wuxuu noqday mid gabi ahaanba burburay kadib markii gantaal culus ay Iran ay la bartilmaameysatay xilli uu ku socdaalayay badda Mareykanka maadaama uu leeyahay markabkan oo Iran ay duqeysay ilaa hadda kama uusan hadlin khasaare rasmiga ee soo gaaray waxaana sidoo kale warar ka soo baxaya Israa'iil ay sheegayaan in ra'iisul wasaaraha dalkaasi Israa'iil Benjamin Netanyahu uu sheegay in saraakiil loogu dilay duqeymaha ay Iran ay la bartilmaameysatay wadamo kamid ah bariga Afrika waana markii ugu horeysay oo Iran ay sheegtaan jabka ka soo gaara Israa'iil Iran ay raadeen waxaana ay sheegi jireen kaliya khasaaraha ka dhashay ee duqeymaha ay ka fuliyaan dalka Iran Mareykanka ayaa sidoo kale waxa la soo warinayaa in duqeymaha Iran ay ku geeriyoodeen saraakiil sarsare inkastoo warbaahinada bariga dhexe aysan faafinin balse Iran ay sheegtay in halkaasi ay ku dishay saraakiil sarsare iyadoona ugu argudaysa hogaamiyaashii ugu sareeyay ee dalka Iran oo ugu horeeyo Ayatollah Ali Khamenei dhanka kalena waxa xilligan olol xoogan uu ka baxaya safaaradda Mareykanka ee Riyadh iyadoona halkaasi Iran ay la bartilmaameysatay gantaalka nooca balastikada loo yaqaano iyadoo la og yahay in gantaalkaasi khasaaraha uu dhalin karo uu noqonayo mid baaxadiisa aad ay u sareyso waxa la soo warinayaa in safaaraddaasi xilligan ololkeeda uu aad u baxayo isla markaana aan laga agdhawaan karin ayna adag tahay in dabkaasi la damiyo maadaama diyaaradaha ee dalka Iran ay dul haawanayaan guud ahaan bariga dhexe iyo sidoo kale wadamada Khaliijka Carabta iyadoona ololka ka baxaya safaaraddaasi ay Iran ay dusha ay ka eeganayso cid alaale cidii isku soo daydana Iran ay horeyba balan ugu qaaday in ayagana ay dhulka ay ku dari doonaan waxa sidoo kale Mareykanka uu hanjabaado uu ku maray in uu argoosan doono maadaama Iran ay si aad u bartilmaameysatay saldhig walba uu Mareykanka uu ku leeyahay bariga dhexe sidoo kale wadamada Khaliijka Carabta madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay
in uu u aargudi doono saraakiishii sarsare ee ku geeriyootay intii ay socdeen duqeymaha Iiraan, waxaana ay sheegay inuu u aargudi doono sarkaal walba uu geeriyooday sidoo kale saldhig walba oo Iiraan ay bartilmaameysatay. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa qoraal uu soo dhigay baraha bulshada gaar ahaan bartiisa Truth Social waxa uu ku faanay in kaydka ballaaran ee Mareykanka ee hubka heer dhexe iyo sidoo kale heerka sareeya uu leeyahay isagoona sheegay in lagu dagaalami karo dagaalo isla markaana ay socon karaan. waxa uu sidoo kale hadalkiisii ugu dambeeyay uu sidoo kale ku eedeeyay madaxweynihii isaga ka horeeyay Joe Biden in uu siiyay Ukraine hub aad u sareeya oo Mareykanku leeyahay. Eedeymahaas culus waxay marmarsi ay u noqonayaan dagaalka xilligan ay kula jiraan Iiraan maadaama Iiraan markaan ay la soo baxday awoodeedii ugu dambeysay isla markaana ay doonayso in ay dagaalka ay sii laba jibaarto. dhinaca kalena warar soo baxaya ayaa waxay sheegayaan in weerar Iiraan ay ka fulisay lagu burburiyay saldhigga Mareykanka ku leeyahay Bahrain. muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa waxaa lagu arkayay qiica iyo sidoo kale sawirada muujinaya heerka khasaaraha ee soo gaaray saldhiggaasi. warbaahinta ayaa waxay sheegayaan in weerarka ay fulisay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo sidoo kale gantaalada wax lagu burburiyay ee dhismaha, iyadoona sidoo kale Iiraan ay mar walba ay diyaar ay u tahay sidii ay u bartilmaameysan lahayd wadamada Khaliijka Carabta iyo sidoo kale wadamada kale ku yaala bariga dhexe. iyadoona xilligan ay soo baxayaan baaqyo kala duwan oo ka soo baxaya Sacuudi Carabiya iyo sidoo kale wadamo kamid ah Khaliijka Carabta kuwaas oo ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu u faraya in dagaalka la qaboojiyo xaaladan ay noqoto mid iska dhexdhexaad ah, balse Iiraan ayaanan u muuqanin in hadalkaasi uu ku socdo maadaama qudheeda ay doonayso in ay argoosato dagaalkan ay ku sheegayso in xilligan uu u yahay bilaaw isla markaana marnaba aysan doonaynin in dagaalka uu joogsado. fariimo culus oo kala duwan ayaa ugu imaanaya dhanka iyo wadamada Khaliijka Carabta iyo sidoo kale wadamada bariga dhexe, inkastoo Iiraan gabi ahaanba hadaladaasi aysan dhag jalaq u siinaynin oo ay doonayso kaliya in ay argudato isla markaana ay u argudo hogaamiyaashii ugu sareeyay ee dalkeeda lagu dilay. mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dalka Sacuudi Carabiya ayaa muujiyay caro xoogan oo ku aadan baaxadda iyo xilliga ay ku soo beegmeen duqeymaha Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil ay ku qaadeen Iiraan, iyadoona boqortooyada iyo xulufadeeda Khaliijka ay ugu baaqeen inay ka fogaadaan qaadashada tallaabo kasta oo keeni karta in xukuumadda Tehran ama kooxaha gacan saar kale leh ay argoosi buuxda sameynayaan, taasi oo gobolka ku riixi karta dagaal baahsan. laba ilo wareed oo Carbeed ayaa sheegay in wargeyska Middle East Eyes in dhaxal sugaha Sacuudiga ee Mohammed bin Salman uu fariintan u gudbiyay madaxda dalalka Bahrain, Kuwait, Qatar iyo isku taga Imaaraadka Carabta. tani ayaa dhacday wax yar kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda ee Sacuudi Carabiya ay si rasmi ah u cambaareysay weerarkii argoosiga ahaa ee Iiraan ay ku garaacday dalalka Carabta. Iiraan markaan waxay beegsanaysaa wadan walba oo gacan saar la leh Israa'iil sidoo kale Mareykanka maadaama safaarado badan iyo sidoo kale saldhigyo Mareykanka uu ku leeyahay wadamadaasi Khaliijka Carabta. abaabulka weerarada lagu qaado Iiraan halkaasi laga soo qaado. Iiraan markaan waxa ay wacd ku martay in qofnaba aysan u turi doonin oo kaliya ay fiirsan doonto danaheeda maadaama wadamo badan oo Carbeed ay si adag ugu soo horjeesteen Iiraan, iyadoo sidoo kale ayaa wadamo kale oo aanan muslimka ahayn Iiraan ay la soo safanayaan oo ugu horeeyo Faransiiska oo si adag u cambaareeyay weerarkii Israa'iil iyo sidoo kale Mareykanka ay ku qaadeen dalka Iiraan kaasi oo ay ku geeriyooday hogaamiyihii ugu sareeyay ee dalkaasi Iiraan Ayatollah Ali Khamenei iyo sidoo kale mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dalkaasi Khaliijka Carabta.
dowladda Imaaraadka Carabta sidoo kale Qatar ayaa dhankooda olole diblomaasiyadeed oo hoose ka wada hadalka xulafada uu leeyahay si ay gacan uga helaan in madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump lagu qanciyo in uu soo gaabiyo howlgalka military ee ka dhanka Iran oo ay u raadiyaan wado lagu baxo xiisad taagan sida ay xaqiijiyeen ilo wareedyo. inkastoo oo Mareykanka hore u sheegay in wax shaqo uusan ku lahayn amaba uusan difaaci doonin wadamo kamid ah Khaliijka Carabta oo xilligan ay bartilmaameedsanayso Iran, waxaana uu sheegay in kaliya wadankiisa uu difaaci doono iyo sidoo kale Israa'iil. taasi ayaa waxay dhabarjab ay ku noqotay qaar kamid ah wadamada ku yaala Khaliijka Carabta oo ugu horeeyo wadanka isku taga Imaaraadka Carabta oo la og yahay heerka baaxadda ee qasaaraha ka soo gaaray weerarada Iran ay ka fulinayso dalkaasi isku taga Imaaraadka Carabta. waxaana uu sheegeen in madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu qayaanay dagaalka intuu soo galiyana uu ugu baxay xilligan uu sheegay in uusan difaaci doonin wadamada Khaliijka Carabta kaliya uu difaaci doono wadankiisa. arintaasina waxay ku noqotay dhabarjab iyo sidoo kale niyad-jab. xilligaana Iran uma turayso sidoo kale Mareykankana awaal ugu mahayo iyadoona xaaladdu ay tahay mid cakiran. wixii xoogay ku soo kordhana muuqaaladeena xiga ay idinku soo gudbin doonaa haddii ay tahay markii ugu horeysay ku soo gaaro muuqaalkeenana fadlan subscribe inoo dhig gambalaalkana furo si ay ku soo gaaraan muuqaalada kale xiga. haddii aad subscribe inoo tahay muuqaalkana share garee laaga noo saar si uu gaaro asxaab badan ku maasantahay daawashadaada.